kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Alool Media qodobada aan maantiina haynana waxa ugu waaweyn Turkiga oo mar kale inqilaab military ka badbaaday mas'uuliyiin badan ayaa xabsiga la dhigay xoogihii ugu dambeeyay ayaa warkeena ku daawan doontaan boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ku howlan aqoonsiga xukuumadda Yuhuudda ee Israa'iil iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo markii ugu horeysay raaligelin bixiyay qodobada iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba iyaga oo faahfaahsan daawadayaal Alool Media TV had iyo jeer waxay u taagan tahay soo gudbinta wararkii ugu dambeeyay iyo xogihii caalamka gaar ahaan diblomaasiyadda iyo arrimaha siyaasadda oo maalmaha ka dambeeya xasaasi noqonaya haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad follow gareyso boggan si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyada sidoo kalena nagala qayb qaado faafinta barnaamijkan kuna sii shirgare ee baraha bulshada وهاجاج كلنتي وعن مركل الدعوة يا لا إنكم بلون وربحن وقري ورجيسك جارديان كسب حدلك إنجليز كنيويورك بوست أو كسب حدلك أمريكان كايا شاعي إن سعودي وكوه ولا يقرشة وقون سبوحة خصينا يا دولة إسرائيل heshiis kan ayaa noqonaya kii ugu xasaasisanaa ee ka dhaca mantiqiyada bariga dhexe waxaana si weyn hawshaasi isaga xil saaray dhaxal sugaha Sacuudiga oo isagoo ka hor heshiisyada Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ay la galeen Yahuudda ku hadlayay luqad adag oo loo fahmi karay in uu raali ka yahay in Yahuudda iyo Carabtu ay bilaabaan waji cusub oo nabad iyo is-aaminaad ku dhisan soo jileeca Sacuudiga ayaa loo fahmay sida lagu sheegay warbixintan in boqortooyada Sacuudigu dareentay in saameynteedu ay sudhac ku yimid sidoo kale aan wax badan hadda laga su'aalayn dhaqaalaha Sacuudiga ayaa ah mid sii dhacaya sidoo kalena waxa ay taasi keentay wax soo saarka Sacuudiga oo ku salaysan shidaalka iyo suuqa iibgeynta shidaalka oo sudhac aad u weyn ku yimid sanadihii la soo dhaafay sidoo kalena iyadoo la saadaalinayo in hoos u sii dhacaasi sii socon doona maadaama dunidu u sii guurayso isticmaalka enerjiyada iyo sidoo kale cadceedda isbeddelka dhaqaalaha ee Sacuudiga ayaa keenay in uu dib isula xisaabtamo waxaana odorasyadu ay sheegayaan in cabsida ay u qabaan Mareykanka oo urur ka qaba in uu ku kicin karo dadweynaha sida Liibiya iyo Carabta kale ee ka soo horjeeda rabitaankooda Sacuudiga ayaa saaxiibtinimada Mareykanka iyo saameynta isagu ku leeyahay mantiqiyadooda ku hubinaya inuu curiyo saaxiibtinimo cusub oo la galo Yahuudda si uu waji cusub oo saaxiibtinimo uga helo dawladda Mareykanka waxa qodobka ugu weyn ilaa hadda la isla marila yahay uu ka taagan yahay magaalada barakeysan ee Qudus taas oo Israa'iil rabto in loo aqoonsado caasimadda halka Sacuudigu taas uu ka dhagaadaygayo waxa isna meesha yaala hubka casriga ah ee isaga lagu soo xirigeliyay dawladda Imaaraadka Carabta balse markii dambe heshiiskaasi looga baxay kadib markii hore loogu sheegay in laga iibin doono diyaaradaha F-35 balse dib laga diiday diyaaradahaasi boqortooyada Sacuudiga ayaa iyaguna raba in marka hore gacanta loo soo galiyo diyaaradahani sidoo kale magaalada barakeysan ee Qudusna aan lagu xusin heshiiskan ay la gali doonaan dawladda Yahuudda ee Israa'iil intaas hadii laga aqbalo waxa meesha yaala in ay aqoonsi buuxda iyo heshiis diblomaasi oo caadi ah la yeeshaan Israa'iil halka ay gacan iyo garab ka siin doonaan sidii miiska loo keeni lahaa Carabta iyo dawladaha Muslimka ah inta ka dhiman Falastiiniyiinta ayaa gebi ahaanba ka maqan wada hadallada dhexmaraya dawladaha Carabta iyo Israa'iil waxaana taasi keeni kartaa in si weyn shacabka Muslimka ah uga biyadiidaan heshiis kaste oo dawlad Carabeed ay la gasho Yahuudda Israa'iil oo gumaad baan ku haya muslimiinta Falastiiniyiinta ah ay dhulkooda ka qabsadeen waxaag daawadayaal Alool Media TV ayaad la daawanaysaan xukuumadda Rajab Tayyip Erdogan ee Turkiga ayaa amartay in la soo xiro 82 mas'uuliyiintan oo ay ku jiraan maayro xildhibaano iyo siyaasiyiin kale ayaa lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin kicin dadweyne oo laga sameeyay gobolada Kurdiyiinta muddo 6 sano ka hor ah waqtiga kacdoonkan oo waqti dheer ay ka soo wareegtay ayaa warbaahinta caalamku waxay si qoto dheer u eegayaan in ay jiraan dhaqdhaqaaq afgambi oo fashilmay oo siyaasiyiintani lagu marmarsiyoonayo mas'uuliyiintan ayaa kuwa kamid ah aanay ka soo jeedin Kurdiyiinta halka kuwa kale la sheegay in aanay weligood cag saarin gobolka ay degan yihiin Kurdiyiintu sidoo kalena kacdoonada iyo dadka kicintu ay arintani ka weyn tahay 15 bishii 7 2016 ayaa afgambi dhicisoobay waxa uu ka dhacay dalka Turkiga taasoo lagu eedeeyay shiikha jooga Mareykanka oo magaciisa loo yaqaan Fethullah Gulen warbaahinta dalka Mareykanka ee CNN ayaa sheegtay in ay xiriir la lahaayeen arrimo la xiriira afgambi lagu sameeyay rabay dalka Turkiga saraakiishan xabsiga loo taxaabay
sirdoonka reer galbeedka oo si weyn uga walaacsan quwadda Turkiga ayaa u ballansan inay afgambigaasi dhicisobay ee 2016 mar labaad kaga takhalusaan madaxweyne Erdogan oo ku adag qadiyadda muslimnimada. ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay dalka Turkiga oo sheegaya wax ka duwan ama ka badan in mas'uuliyiinta tirada badan lagu haysto kacdoon 6 sanadood ka hor ka dhacay gobolkaasi Kurdiyinta, rabshadahaas oo keenay dhimasho iyo dhaawac iyo hanti burbur intaba. balse hadallada warbaahinta caalamka iyo dawladaha u cilqaba Turkiga ayaa shaki weyn arintaasi ku dhalinaysa. hogaamiyaha gooni-goosadka ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa raaligelin bixiyay markii ugu horeysay, waxaana raaligelintani ka bixiyay dilka sargaal u dhashay Kuuriyada Koonfureed sida ay sheegtay madaxtooyada. Kim Jong-un ayaa waxa uu u sheegay dhigiisa Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in in ay khalad ahayd in la dilo sargaalkaasi ka tirsanaa Kuuriyada Koonfureed. waxay sheegtay xukuumadda Kuuriyada Koonfureed in 47 jirkan lagu eedeeyay in uu baxsanayay dhinaca Kuuriyada Waqooyi xilli ay arkeen ciidamada ilaalada waqooyiga oo howlgal ka sameynayay badda. waxay ciidamada Kuuriyada Waqooyi dileen sargaalkan waxayna dab qabadsiiyeen meedkiisa sida ay sheegtay xukuumadda Seoul. waxaa xiran xadka labada Kuuriya waxaana la adkeeyay ammaanka xadka Kuuriyada Waqooyi, waxaana dhaqan ay gelisay xukuumaddaasi Kuuriyada Waqooyi in la toogto qof kasta oo lagu arko isagoo oo maraya xuduudda labadaasi wadan. Kuuriyada Waqooyi waxa ay faahfaahin ka bixisay dhacdadan oo ay sheegtay in sargaalkan lagu dhuftay 7 xabadood kadib markii uu tallaabsaday dhinaca Kuuriyada Waqooyi kaas oo ka cararay ciidamada sida uu sheegay agaasimaha laanta amniga qaranka ee Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Waqooyi waxay dhankeeda sheegtay in aysan gubin meydka sargaalka balse ay gubeen qalabkii watay. ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay had iyo jeer difaac kaga jiraan xadka ay la leeyihiin dhigooda Kuuriyada Koonfureed oo xiisad adag ay kala dhaxayso. Kim Jong-un ayaa horey loogu yaqaanay manaxariista aan nixin, balse tani waxay noqonaysaa raaligelintiisii u horeysay ee uu ka bixiyay shakhsi ay dileen ciidamadiisu. waagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkii ugu dambeeyay caalamka oo kala socoteen Alool Media TV anigoo Xuseen Nur Xuseen Naaji ee barnaamijkan la socodsiinayay. Siciid Sanweyn ayaa soo saaray intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono.